dhakhaatiirtu waxa weeye tartanka iyo isbitaalka Digfeer marka loo tartamayo qof dhakhtar ha la geeyaa qof iska caadi lama geeyo baarlamaanku wuxuu u baahan yahay qof xog ogaal ah oo mawaadiicda kala duwan ku matali kara heer beeshii uu ka dhashay heer dawlad goboleedkii uu maaragtay ka soo jeeday iyo heer qaranka Soomaaliyeed oo baarlamaan qaran u yahay qof saddexdaas meelood ba ka ciyaari kara la rabaa hadda waxay noqotay baarlamaankii qof walba xogaa uu iska qiimo dhacay qof walba tabeel iska suranaya ayaamahan dambe oo ilma yar iyo dad kale iyo waxa arkaysaa dad waayeel iyo kulli nin walba meel iska suranaya waxaan u rabnaa macallin Maxamed Ibraahim Macallimo oo runtii waaya araga dhalinyaro dalkan u soo dhintay u soo rafaaday u soo dhaawacmay saxaafad iyo aqoon caafimaad iyo aqoon kale intaba isku darsaday khibrad xafiiskii ugu weyn xafiisyada dawladda mid ka mid ah ka shaqeeya hadeertaan oo jooga ninkaas inayna lugaha qaban Soomaali waa ka soo dhex baxay baadacado lugaha ku dhagneen ninkaas sanadkan iska soo fasax wabarku waa maqlaaya adoo dadku dhan baa u dhaxaysa laakiin si hoose ma arag 101 ugu doono كل قفا كفر دي كرسي ولا هو ضفديا لكن حلباننا إني أنا هنا لبدله سنة كان أنا هو بنكون جراد نهره هوا واحد بدل ما الله مصحون وسود ده لأنه رجع كجرو وسود ده لأنه ذلك دربي هذاك بانون قني لكن كل يمل بين نقولها بطريقتي marka dhiigaas cusub oo macallimigu ka mid yahay oo hadda maanta meeshaan raggan iyo dumarka soo keenay ninkaas beesha baadacadaan iska leh hadduu qof iyo cod ahaan lahaa sidii professor ku sheegayay fuje anagoo dhan baa ugu shubi lahayn oo baadacada kaliya uma yaaleen marka ninkaas lugaha ay ka soo fasaxmo intaana waxay marqaati ka tahay oo maanta xafladdaanu noo keen inaan idinla ogaano ninkaas idinkuna ogaano aadna noo soo celisaan dhowr bilood kadib iyo xilliga doorashadu dhacdo asagoo xildhibaana asagana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xildhibaanada waxaa jira qaarna waa iska xildhibaano microphone inaan weligiis tagin xildhibaana jira طبعا ninka microphone kama cabsado waxayna u tagi waayeen microphone kan wala cabsi badan buu leeyahay gariir badan buu leeyahay marka macallimo wuxuu ka mid yahay dadka microphone ka hadalka u bartay oo aan waxaas u jixjaxayn marka intaas lafteedu wax weyn waaye aad iyo aad baa u mahadsantiin macallimiina waxaan rajaynayaa insha Allah halkan halkaas inuu ka sii wado camar iyo ogeysiiska shaacinta kadib